بسم الله الرحمن الرحيم. عن كل سلام يا مركو رئيس سلامة إسلامك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كتير كسوق الجلياشة. دمي كحجانك أوركا هوانك قرب الصوماليين مع عنب. دميها يأدى CCD بالشدة وده هذا الكا أنك هوانك زهر محاول لها دمياشة تطبيق تبنك الدقمة صحافة دميها هوانك قبل كهيران كسوق الجلياشة وحشرف نوعه إيوه حبناها كالصعودة ururka midowga indhoolayaasha Soomaaliyeed waxa dareemaysan barnaamijkan hay'adda CCD macnaha waxay ugu talagashay inay bulshada Soomaaliyeed mar walba ay hadba iyo marxaladda ay joogto ay ku cabiraan waxay ka mid yihiin dadka Soomaaliyeed ee wada hadalka ama loo baahan in ayaga laftirkooda laga warqabo sidaas ay maaragtay uga soo qayb galeen ayagana saxaafadda iyo bahda media dhamaantiin way salaamaayeen baba haweenka Soomaaliyeed waxay ahaayeen dibanayaal dhacdada ugu xanuunka badan ee mar walba ay ku dhacaysay waayo wiilka anaga dhan marka waxaan uga mar walba hay'adda CCD ay la garab taagan maamulka gobolka Banaadir maadaama gobolkan uu yahay maskaxdii ummadda Soomaaliyeed gurigii ummadda Soomaaliyeed hogaankii ummadda Soomaaliyeed bulshada Soomaaliyeed ay ku midaysan tahay jiritaanka gobolka Banaadir wuxuu xambaarsan yahay magaca caasimadda ummadda Soomaaliyeed ee Muqdisho ayaa nasiib u yeelay saas awgeed waxaan rajaynaynaa inaan ka gudubno caqabado badan oo calaamado badan wadnaheena ku abuuro oo ah ummad isbaabiinayso isdilayso wax dhacayso wax qaribayso alxamdulillah maanta waxaan haysanaa dawlad hay'adana waxaan u rajaynayaa inay mar walba ku cabiraan dareenka ummadda iyo sida ay ugu baahan yihiin marka doodan waxaan leeyahay waa dood loo baahnaa haddaan u soo gudagalo qodobkan maxaa la gudboon haweenka Soomaaliyeed mar haddii ay kooxda al-shabaab bilaabeen inay beegsadaan haweenka ugu dhaqdhaqaaqa bulshada waxaa moodaa qodob aniga si qaas ah taabanayo waad ogtihiin dhacdadii xanuunka badnayd ee loo beegsaday walaasha raxmad ka degmooyinka 17 marka hore waxaan rabaa inaan dhahno raxmo Allah u naxariisto aan ku xusno oo dhahno mar walba aan xasuusanaano mar haddii gobolka Banaadir iyo haweenka 17 degmo raxmo waxay noqonaysaa kaalinta koowaad mana hilmaami doono raxmo Allah qodobkan iyo barnaamijkan si qaas ah wuxuu noo taabanayaa dareenkii iyo maskaxdii ayaa lagala dagaalamayaa magaaladan ujeedada marka hadda ay damceen inay u bedelaan bulshada inay dilaan dadka u hadlaayo daacadda muwaadinka Soomaaliyeed qof kasta oo maaragtay damiir leh waxay hadda u diyaarsan yihiin inay dilaan hooyada Soomaaliyeed lama dilo lama dhigo ragga la dilaa wiilkayga qofka dilay dabcan wuu dilay aabay qofka dilana hore wuu dilay marka la rabo in wiil Soomaaliyeed ay dilaan anigu already waan inta sidaan aaminsanahay marka waxaan rabaa bulshada inaan ku cabiro dareenkayga maanta qodobkan oo ah qodob aad u xanuun badan loona baahan yahay in laga hadlo waxaan haweenka Soomaaliyeed ugu baaqayaa oo dhihi karaa barnaamijkan iyo qodobkan wuxuu noo quseeyaa waa sababaha raxmo loo dilo oo ay raxmo waxay ahayd gabar Soomaaliyeed qaran ah 7 caruur dhashay dalkan ku dhalatay una adeegayso ummadeeda waxay ahayd sababta loo dilay inaanay gabdhaha kale ay baqaan laakiin waxaan rabnaa inaan u sheegno annagu ma baqanayno waxaan nahay dad ay qof walba leeyahay maalinta lagu soo doonana ma noolaanaysid marka waxaan rabaa waxaan uga gudbi karnaa isku xirnaan wacyigelin iyo iska warqabin iyo inaan la shaqeyno ciidamada qalabka sida Soomaaliyeed hay'adaha kala duwan oo aan ka mid noqono military ka mid noqono police ka mid noqono nabad sugidda mar haddii nabadina loo diiday noloshiina loo diiday waa ku qalado maxaan isku difaaci karnaa gabar walba oo inta maanta joogta oo naga mid ah inay dawlad aan haween lahayn dawlad aan dhalinyaro lahayn laba tiir oo muhiim bulsho meel ku nool quruxdeeda isbeddelkeeda haweenka muhiimka ah haweenka gobolkan ku nool waxa buuxiyay waxaad moodaa iyo dulmi iyo nin jeclaysi inaan ku shaqaynayno taas haddaan ka gudubno waxaan ka hortegi karnaa cadowga diyaariyey barnaamijyada
naloogu dilaayo nalagu maleegaayo guryaheena annagoo hurdayna raba inay noogu soo dhacaan albaabkaaga hortiisa taagan waxaan marka rajaynayaa haweenku inay aadaan kuwa dhiifoon maxaa loo baahan yahay marka inaan samayno orientation waxa la dhahay wacyigelin bulshada looga digo in la baro inay tahay qoftaan muwaadin Soomaaliyeed dadkana aan kala dagaalamo aqoon darrada oo aan u soo laabano meesha barbaariyaasha ay ka yihiin oo shabaab wali ka nool yahay inay tahay iskuulaadka iyo jaamacadaha soo xiranayaan buugaagay sitaan kitaabay raacanayaan ummaday ka mid yihiin guryahay loo joogaan maxaa la rabaa marka inaan dhaho waa walaalkay waa iga kan waa shabaab hala qabtaa loo eegay naqad cilin ah marka intuu dhiman lahaa soo bixiya runta sheega qabiilkana ka gudbo waxaan markaas gaari karnaa inaan helno nabad meelaan nabad jirin nolol mataa annaga ma baqanayno waxaan ayaa weel Soomaaliyeed iyo dadkaygu adeegayo waxaan dhimanayaa anoo aaminsan gurigayga markaan ka baxayo in ilaahay dus igu soo celinayna aan ku noqonayo anoo aaminsan inaan deegaanka u shaqaynayo anoo aaminsan inaan cidna dulminaynin laakiin waxay ogaataan intee dhimata maalin walba ee dawladda marka la sheego marada intay dhaha saarto isqarinayo baqanayo way intaan qof aan dhimanayna ma jirto maraykanka ilmahan ingiriiska Yurub habeen iyo maalin iska daaci kale kuwan ayaga dila oo isku gareenay maanta marka magaaladan ma aha magaalada cabsida way ka baxday 22 sano buug madow oo aan dhaxal lahayn oo aad u xun oo fool xun oo qabyaalad ka bilowday ayaa qarankeenu ku dubin waxaan rabnaa page cusub inaan furano ma baqanayno waxaan rabaa marka inaan u sheego anigu waxaan ahay gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir waxaan ka mas'uulahay haweenka gobolka saago foorka layka horaan tagay waan bixinay waan la dagaalamay inaan baqana ma baqanayo cidna kama baqanayo waa dhimanaya saacadan leeyahay ilaahay waxaan rabaa inaan isku dhiirigeliyo inaan og inay ku shaqeynayaan horumar iyo isbedel adoo dad xamalaynin adoo wax dhacaynin adoo tuugayn adoo reer hebel u hiilinaynin ka bax guriga u shaqeey umada u heeganka ka gal habeenii maalin aan gaar ku wareegna magaalada maxaan samayn karnaa marka habeenkii marka ilmihiina yimaadaan baala ilmahaaga muxuu soo bartaa maxaa loo soo dhigaa muxuu yahay casho ku qaato waa inaan isweydiino gurigay noo joogaan haddana annagayna qarxinayn aqli maaha ninka miinooyinka guryaha hortooda dhigaayo habeenka xaafadda wax ku qarxinaya habeennimadii uu ku hayo garaashada laga soo abaabulayaa waa inaan tagna garaashada waa inaan tagna meelaha mootooyinka lagu kareedsanayo waa inaan tagno iskuulaadka waa in baarinta ibn waxa la dhahayo waalidiinta iskuulaadka intii loo yeero aan weydiino meeqa iskuulkaan dhigato caruura xaggay ka yimaadeen ilmaha maxay yihiin ilmaha waa inaan rasaltiga cabsida ergagaxa mugdiga qabiilka waxaasoo dhan sano Soomaalinimo wadani jacayl inaan caruurteena barno luqadaha la baraayo laftirkooda dagaalkay ka mid tahay afka Soomaaliga wuxuu ka baxay daaqada maxay marka cadeynaya inaan Soomaalina waa inaan ayadana aan ogaano waxaan rajaynayaa bridge ka dhiga karnaa inaan higsano dawladda inaan kaabno inaan u mahad celino hay'adaha aan maaragtay sida CCD ay ayaguna kuwa kala dhex dhigo guriyihii waa dhisnay oo qurux badan laamiyadu waa bartay baabuurku ugu dambeeya lagu soconaya laakiin maxaa ugu qalbigii bini'aadamka wali la hadlay waxa loo baahan yahay marka in xaafadaha degmooyinka gabdhaha gudoomiyaasha 17 degmo walba waxaa ka dhisan 15 gabdhood oo ururka haweenka degmooyinka 15 kaas gabdhood hadday daacad ka tahay waxay bedeli karaan maskax badan armaya hortiina aan ka cadeynaya in aan sameeyno isbedel in bulshada la wacyigeliyo 15 kaas gabdhood 255 xubnood ayaa 17 degmo ka dhisan oo konsolka ururka haweenka degmooyinka macquul maaha marka in habeen walba annaga ilmaha dhamay dib inta noogu soo noqdaan ay qarxiyaan aqli maaha annagu waxaan leenahay ma baqanayno waxaan u sheegaynaa cid walba oo rabta inaan mugdiga ku noqono waxaan leenahay haweenka Soomaaliyeed oo maya ma ogolin cabsi ma ogolin argagax ma ogolin mugdi ninka baala qarxiyay naf nool ma dhaafayo baala ninka miinada ku xiraayo ogsoonow in uusan nolol adiga ku ogolay marka ninka baala iga qarxiyay dad aan weydiinaya maxaan suganaynaa ma biyo soo socdaan suganaynaa war ma iska celinaa nimanka ma la dagaalamay inuu inta rabo oo baqanayni ilmo yar oo la kuro maandooriya qaarkood way bedelayeen sababtoo qof islaamka miyuu qabaa dhiigga oo la qodo islaamka miyuu qabaa qoorta oo la jaro islaamka miyuu qabaa qoobabka oo la jaro islaamka miyuu qabaa qabriyada la qodo waxaasay ku dhaqmaan wax ka liita noocaasay ku dhaqmaan qof islaam diinteedu waa salaam waa nabadgelyo waxaan idinkula dardaarmaya horumar sinaan cadaalad
waxaan ay hooyo qalbiga hooyada hadduu qabiil ka buuxo qabyaalo ka buuxo oo niraada canab maxay without communication waxaa ma dhici karaan in ummadan hay-adan CCD barnaamijyada ay noo qabanqaabinaysa naga caawinayso ee gobolka banaadir maalin walba la garab taagan tahay waa in aan bedelno meeshaan waxaan ka qaadno gobol walbaba 10 gabdhood ay saaxiib la tahay waa inay dib ugu noqoto waa inaan feejignaanta taleefanada sida loo diro iska warqabka isku xirnaanta intaasna ka shaqeeyo maaha maalin walba inta seminaarna loo sameeyo nala caawiyo qarashna lagu bixiyo naloo dadaalo barnaamijyadeena naloo diyaariyo nala kaabo haddana aan wax bedel weyn aqli ma waa inaan la nimaadno inaan noqono bulsho yoole oo wax igsanayso waa inaan la dagaalano cid walba nafteena noo duugo waa inaan la dagaalano cid marka laba dadkan ragga Soomaaliyeed ee caadiistay inay dawladda caayaan inay maalin walba banaanada istaagaan inay annaga gurbaanada u tuno inaan u sheegno dhaana maya ma doonayna ma taaficnaato dawladda noo dhisan dawladdeena ciidamadeeda maxaan ku qaadan karnaa waa inaan bixino contribution aqoonta kamida nabadaynta kamida wada hadalka kamida xoolaha diibna kamida laakiin ciidankii askariga banaanka taagan oo yiri soo gaadaysan guriga ugu yimid ma qofku ka celinaya muxuu ka celin karaa naagtiisa yaa galaysa isbitaalka wuxuu ku geeyay ma haysto muxuu qaban karaa dawladana waxaan ka codsanaynaa in mudnaanta koowaad la siiyo ciidamada qalabka sida maaha lagu gooyo wadada ceeb iyo sumcad xumay lagu tahay degmooyinka xuduudahooda la kala jira aqlaq ma soconayso ma waxaan nooga dhintay raadinay qalbi wanaagsan aan ku shaqaynayna war ma waxba la iska keena bedelay ma kala raana la mariyay maxaa lagu dhacay kara marka maxaa sababay in wadooyinka xamar la kala xiro ma cabsanayno waxaan u sheegaynaa cid walba oo nagu soo duushay inaan kaga hortagayna gacan bira inaan iska celinayno amnigana ka shaqayn doono waxaana noo ballana حدينا لكارجرات جريان مقشان جوائر واقع مطي وساعد ذاك الشيء كل الناس ده خليك على وقت أنا مالك يوجد لي هذا ومدار وحقوق بنيسي لما أقدر كار مايا والسلام عليكم